Garàdag Modern Stadium waa garoon casri ah oo sanadii 2020 laga hirgeliyay degmada Garàdag isla markaana hirgelintiisa lahaa aqoonyahan Cabsaal Jaamac Xasan oo kamid ah dhalinyarada degmada Garàdag. Garoonkan oo noqonaya garoonkii labaad ee noociisa ee ka dhisan gobolka Sanaag ayaa inta badan waxa ku dheela ama ku ciyaara dhalinyaro ka kala yimid gobolada iyo degmooyinka dalka Jamhuuriyadda Somaliland iyadoo sidoo kale ay chance u heleen inay ku dheelaan ama ku ciyaaraan dhalinyarada cuslaatay. Garoonkan oo qaybka horumarka ballaaran ee sanadadii ugu dambeeyay ku talaabsatay degmada Garàdag ujeedka ugu weyn ee aqoonyahanku oo aasaasay garoonkan ayaa ahayd sidii uu dhiirigelin lahaa dhalinyarada gobolka Sanaag isla markaana ay ula jaan qaadi lahaayeen dhalinyarada gobolada xilliga ay chance-ka hayaanna dhalinyaradu ay ugu dheeli lahayd garoonkan si aan dhalinyaradu ugu jeesan aafooyinka reegaadiyay ay ka mid tahay balwadaha iyo tahriibka. ayaa habeennimadii xal ahayd maraan boqonnay waxaan kula kulannay iyadoo ay ku dheeliyeen kooxo kala duwan oo ka dhisan degmada Garàdag. waxa weeye Garàdag Modern Stadium waxaa maalgeliyay macallin Cabsaal oo ka mid ah dhalinyartii wax ka bartay degmada macallin ka soo baxay CV-giisa daan ku yar dheeraado jaamacadda Camud kamu soo shaqaysan hantida uu garoonkan ku maalgeliyay dibadda laakiin wuxuu ka soo tabcaday dalka gudihiisa. macallinku umuu dhisan inuu ganacsi ka faa'iido umuu dhisan inuu dhaqaale ay uga soo gasho laakiin wuxuu u dhisay sidoo u motivate garan lahaa dhalinyarta degmada Garàdag ay role fiican uga qaadan lahayd ciyaarta gobolada sidoo loo yareyn lahaa balwadaha iyo waxyaabaha xun. macallinka aad baan uga mahad celinayaa macallin Cabsaal waxaan leeyahay jazakallahu khayran wax badan baad ku soo kordhisay. sidoo kale waxaan halkan baaq dheer uga dirayaa dhammaan qurba joogta iyo qolqol joogta degmada waxaan leeyahay iyo gaar ahaan galbeedka inay degmooyinkooda sida macallin Cabsaal ay maal gashaan dhalinyaro tusaale qaadano macallinka oo looga yimaado gobolka Sanaag degmada Ceerigaabo ilaa ceelif weyn oo xalay nala joogeen oo nala ciyaarayeen abaaradii meelaha marka garoonku wuxuu ka qayb qaatay horumarka degmada Garàdag waa garoonku dayr mudan leh dadkan joogo qurbaha macallinku u dhaama weligiin degmadu joogay waxaan leeyahay macallinku magaalada joogo horumar gaariyay inagu aan maanta nasiib u yeelano macallinku nasiibkii nagu keenay degmada Garàdag maroodo jeex aan ku dayano garoomada aan nooca ay leeyihiin falaashada imika waa abaarad tobanadii ilaa tobanadii bar meelaha imika noo bilaabmi doontaa kubaddu xilliga ku ciyaarna garoon anaga faa'iido badan binoo tahay maadaama garoomo hore aan ku ciyaari jiray rooga inaan maanta xariirjeena gobolka Sanaag ciyaaraha gobolada dib loo waxyaalaha reebi jiray waxa kamid ahaa inaan roogaan haysan oo ay xilad halka ka miis inaan kubaddi la qabsan weyno markaan lageeyo caasimadii marka faa'iido dhan binoo tahay uu macallinku noo soo kordhiyay inaan garoon maanta aan ku qabsano aan asaageegi gobolada galbeedka aan kula tartano aan naloo hirgeliyay aan wax badan nooga soo kordhisay khibrada aan hore u lahayn aad iyo aad baan macallinka ugu mahad celinaa tijar Cabsaal Caagashay jazakallahu khayran ilaahay ka siiyo baan leenahay garoonkuna waxyaalo badan buu noo soo taray waxaana kamid ah in aanu higsadayno wadadii gobolnimada waxyaalo badan oo gobolnimada kamid ah way noo hirgaleen inta noo dhiman insha Allah waxaan rajaynayaa inaan hirgelino waxaan ku baraarujinayaa gobolka laga hirgeliyo garoonka koowaad wuxuu ku yaalaa caasimada gobolka Sanaag ee Ceerigaabo kii labaad weeye kani si loo doogsoon yahay macallinku wuxuu geliyay dhaqaale aad u badan wuxuu geliyay dadaal sidoo degmadiisa u horumarin lahaa wuxuu geliyay juhdi iyo dadaal aan gelin kuwa qurbaha u jooga isagoo aan ka tagin degmadiisii buu haddana seebaad u horumarin kartaa sida daraadeed macallinka waxaan leeyahay ilaahay ka taas iyo horumarka aad gaarsiisay degmada Garàdag aan iyadana fariin uga dirayaa qurba joogta degmada Garàdag waxaan leeyahay waa aragtaano aan ka tagin joogay waa horumar gaariyay oo horumarka la taaban karay caawada aan dhex taaganahay idinkana waa lidiga sugay kuwan iyo kuwa kale oo ka badan si degmadu u gaari lahayd wuxuu ka mid yahay horumarada soo kordhay degmada dooyinkii u dambeysay waad ogtihiin oo Garàdag ama magaaladan Garàdag dadaal fara badan waxay ugu jirtaa inay hanato xilli ay haatoba inay ku guuleysato helidda inay gobol ay hesho oo ay runtii ahaantii u qalanto horumarkan garoonkan iyo horumar kale oo fara badan oo magaalada ka jiraana runtii waxay astaan muuqata u yihiin horumarka degmadu ay ku talaabsanayso iyadoo higsigeeda gobol doonayso garoonkan waxaa la dhisay sanadkii hore 2020 bishii 9 ilaa hadda aynu joogno 2021 bishii 3 intaaba garoonkani uu dhisnaa uu shaqeynayay garoonkan waxaan ugu talagalay dhalinyarada degmada iyo bulshooyinka reer Garàdagba inay ku ciyaaraan run ahaantii habeen iyo maalinba maalintiina waa la ciyaaraa haday gal hore oo subaxii tahay haday galabnimadii tahay iyo haday habeennimadii imika waqtigan joognaa waa 10kii habeennimo waa la ciyaaraa xilli walba dhalinyaradu ciyaaraysa ma sha Allah dhalinyaro fara badan iyo dadweynaha bulshada reer Garàdag fara badan baa ku ciyaarta maalintay ugu yar tahay ilaa 4 tiim ayaa ku ciyaara oo subaxii loo galabtii loo habeenkii 4 tiim baa ku ciyaara run ahaantii markii hore garoonkan aanu unkaynay dhisaynay dadka gobolada jooga iyo dadka nala soo talinaya waxay lahaayeen Garàdag ma qaadi karto garoon inta looga roog gobolada halaga run ahaantii uma aanan joojin waanu ku dhiiranay inaan arinta ka dhabayno ka mid dhalino arinkii markii hore dadku ay ku talinayeen sheegayeen been buu noqday 4 tiim iyo 5 tiim ayaa ku ciyaara waliba khamiistii jimcaha iyo 6 tiim xitaa gaadhaan dadkii oo dhan baa markaa ku soo xidhmay dadkii dhalinyaradii cuslaatay dhalinyaradii kale kubadda dhammaan waxay noqotay goob la isugu yimaado aadna waxay ku qayb qaadanaysaa
arrimo fara badan oo dhalinyarada ku jirto bay ka qayb qaadanaysaa oo inay markaa bilwadihii yaraadaan in markaa bilaa camalkooda la isaga مدرسة نجري وربعين دقيقة جمهورية الصومال Garàdag